رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug kulamo gooni ah caawa kula leh qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi. Raiisul Wasaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray Dhuusamareeb ayay ujeedada socdaalkiisu tahay inuu salka u dhigo shirka dib u heshiisiinta bulshada deegaanada Galmudug oo lagu wado in maalmo kooban kadib uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb. sida ay wararku sheegayaan shirka oo in muddo ahba soo jiitamayay dibna uga dhacay goortii loogu talagalay ayaa waxaa hareeyay caqabado uga imaanaya qaybo ka tirsan bulshada deegaanadaasi. wararku waxay intaa ku darayaan in siyaasiyiin badan oo kaashanaya odayaal dhaqameed ay aad u ragaadinayaan shirka. dhinaca kalena hogaamiyaasha ururka Ahlusunna wal Jamaaca oo kamid ah dhinacyada lagala tashaday qabsoomida shirka heshiisyo kala duwanna galay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa iyagana lagu soo warramaya in ay yihiin caqabada ugu weyn xilligan hortaagan habsami socodka howlaha shirkaasi. Ahlusunna wal Jamaaca oo dhowr goor soo celisay tabashooyin ay ugu weyneed in ay dawladda Soomaaliya ku eedeysay inay uga baxday heshiisi ay wada galeen oo ku saabsan mustaqbalka siyaasadeed ee Galmudug iyo sida ay u wada shaqeynayaan. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa horey ugu dirtay Dhuusamareeb guddi heer sare ah oo loogu talagalay in uu la xajiisto Ahlusunna wal Jamaaca iyo dhinacyada kale ee sheegaya in ay wax ka tabanayaan dawladda. sida la xaqiijiyay Ahlusunna wal Jamaaca sooma bandhigin heshiisa looga baxay hase yeeshee waxaa cirka isku sii shareerayay maalinta ka dambaysa cabashooyin iyo arrimo kale oo mararka qaarkood u muuqanayay kicin dadweyne iyo in dawladda dhexe aysan door muuqda ku yeelan dadaalada lagu doonayo in lagu dhiso Galmudug lagu wada kalsoon yahay. raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo majaraha u haya dadaalada lagu xasilinayo Galmudug ayaa shalay magaalada Muqdisho kula kulmay xildhibaanada mucaaradka ah ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug. Khayre ayaa xildhibaanadaasi kala hadlay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dhismaha iyo mustaqbalka Galmudug. xildhibaanadaas qaarkood ayaa kulanka kadib waxa ay sheegeen in raiisul wasaaraha ay isla garteen gabi ahaanba qodobada ay ka wada hadleen. raiisul wasaare Khayre ayaa lagu soo warramayaa in uu garowsaday socdaal farsamo oo ka horeeya midkii uu ku tagi lahaa furitaanka shirka kaasoo uu ku doonayo in uu ku qanciyo cid kasta oo wax ka tabanaysa dhinaca xukuumadda. Khayre oo si diiran maanta loogu soo dhaweeyay Dhuusamareeb ayaa lagu soo warramayaa in uu kulamo kala gooni ah caawaba la leeyahay madaxda Galmudug, guddiga qabanqaabada shirka, Ahlusunna wal Jamaaca, duubabka dhaqanka, saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kale ee bulshada. warka ugu dambeeyay caaw ka imaanaya Dhuusamareebna waxa ay sheegayaan in xaaladda magaaladu ay aad u xasiloon tahay lana dareemayo in shirku u furmi doono sida loogu talagalay ayna ka qayb gali doonaan dhinacyada uu quseeyo oo dhan. raiisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa aad isugu dhabarjabiyay sidii Galmudug uu ku noqon lahaa dawlad goboleed ay ku qanacsan tahay bulshadiisu awoodna u leh fulinta howlihiisa. maamul goboleedka Galmudug oo kamid ah maamulada urdanka ee Soomaaliya ayaa muddadii uu jirayba waxa ragaadiyay khilaaf xoog leh oo u dhaxeeyay siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka iyo waliba dawladda dhexe ee Soomaaliya.